nabadgelyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin ramadaan kariim waa tafsiirkii suuratul faatixa suuratul faatixa waa suurad makiye ah waxa ay ka kooban tahay 7 aayadood waxay si wanaagsan u tilmaami doontaa sida in ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahadda gaar ahaan uu u leeyahay naxariista inuu isaga leeyahay dadkana loogu talagalay inay ilaahay toosnaan ka dalbadaan bismillaahir rahmaanir rahiim magaca alle ayaan ku bilaabayaa allaha soo naxariista guud ahaaneed naxariista allaha soo naxariista gaar ahaaneed naxariista alxamdulillaahi rabbil caalamiin mahad dhammaanteed alle ayay u sugnaatay allaha soo barbaariyaha caalamka ah allaha soo u khuma wax walba dadka u baahan yihiin allaha soo dadka baahiyahooda dhammaan u qabtaa arrahmaanir rahiim allaha soo naxariista guud ahaaneed naxariista muslim iyo gaalba u naxariista allaha soo naxariista gaar ahaaneed naxariista muslimiinta oo keliyana mid gaar ahaaneed u naxariista مالك يوم الدين boqorkii maalinka abaalmarinta yacni maalinka qiyaamaha إياك نعبد وإياك نستعين adiga uun baan rabbow ku caabudaynaa adiga uun baan rabbow ku kaalmo weydiisanaynaa اهدنا الصراط المستقيم rabbow nagu hanuuni waddadii toosneed صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kuwii jidkoodana nagu hanuuni ee aad u nimcaysay dushooda oo kuwii loo carooday aanan ahayn yacni yahuud kuwii lumayna aanan ahayn yacni nasaaro